go'aan cad kama gaarin been cad bay ka gaareen been cad iyo sharci darro cad iyo xishood darro cad iyo dulmi cad ayay ka gaareen wax dhibaato ah oo Jubbaland arrintaasi waa tala male niman faashiliin ah oo shaqada loo idmada ku fashilay oo shacabkii awalba sida ay ku yimaadeen ogaa haddana u caddaatay inay wax mas'uuliyad ah u haynin shacabka Soomaaliyeed ayaa hadda ogaaday sababtoo ah siday ku yimaadeen ilaah waa garanaya ayagu waa garanayaan annagu waa garanaynaa kii soo qaran wuu garanayaa marka hidda xumidooda iyo asalkoodii doon xumida ay ku yimaadeen hadday og yihiin dadka sharciga ku fadhiya ee shacabkooda matalaya ee shacabkooda soo xushay oo aan laaluush ku imaanin oo aan been ku imaanin oo aan 4.5 4.5 ku imaanin oo deegaanka ee degan lagu soo xulay oo dadkooda soo xushay waxba kama ay sheegeen Jubbaland arrintaasi kalsooni iyo sharaf iyo horumar iyo dimuqraadiyad iyo federalismka oo ay cagta wadada sii saarto baa oo korortay kuwaasna ceeb iyo foolxumo iyo burbur iyo hoog iyo ba ayaa oo kordhay cidii ka mid ah beelaha degan deegaanka Jubbooyinka qoraan u sheegna haddaan sheegayna waa sheegi doonaa inaan la fariisano habeen iyo maalin wala hadalno heshiino way xuquuqdooda heerka ay gaarsiisan tahay kala hadalno dadka beelaha degan kulligood xuquuqdooda siyaasadeed inay xildhibaan noqdaan wada gaarsiisna qof walba xuquuqdiisa waa uu helayaa haddee tahay xildhibaan haddee tahay maamul gobol haddee tahay degmo haddee tahay tuulo laakiin beel xuquuqdeeda waynayso ma jirto dadka u dhashay ee reer Jubbaland beelaha wax dhibaato oo ka taagan ma lahan waxa waaye waxa fidnada dulmiga saqajaannimada caadaystay ee wado waa koox yar oo faashiliin ah oo deegaan ay dad ku matalaan oo ay baarlamaan ku noqdaan aanan ku haysan Jubbaland fidnada waxay ka socotaa xaaraan quutayaasha qaylo quutayaasha raba inay ku dhex noolaadaan ka dhex kalluumaystaan 4.5 arrintaasi Jubbaland waa ka dhamaatay masiirka siyaasadeed ee Jubbaland wuxuu u gudbay qaab deegaan beelahaasi haddayba jiraan waa la xajoonayna waa qancinayna wax dhibaataa ma jiraan waan isla fahmaynaa wax kastoo cabashaa horeyna waan u sheegnay haddaan sheegayna waa sheegi doonaa beelaha Jubbaland wax dhibaato dhex yaal ma laha waa tashadeen baarlamaankooda si dimuqraadiyad u soo xusheen odayaashoodii baa matalayay guddooda khilaafaadka dhexdhexaadanayay guddiga xulista baarlamaanka howsha mas-uulka ahaa beesha caalamka fududaynaysay arrinkaa isaga ah Jubbaland wadadii caddeed ay cagta saartay marka hore wax Jubbaland ka dhan ah oo la keeni karo baarlamaan ma jirto baarlamaan mooshinka ma keeno baarlamaanna deegaanka la shaqo ku leeyahay mooshinka ma keeno arrintaas way caalamka iyo dadka Soomaaliya yaaban yihiin Umar Cabdirashiid waa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka waa noo yimid waa soo dhaweynay waxaas ku afgaranay haddii jiraan cabashooyin dadka degan beelaha degan Jubbaland dadka mid ah inaan si wadajir u eegno guddi aan wadajir u qabanno guddiga xagga ka yimaado guddiga xukuumadda iyo guddiga Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka iyo beelaha leesla eego xal siyaasadeed oo annaga aan dadkan iyo deegaanka hormuud ka nahay oo cidna u qasbaysa ama cidna u yeerinaysa aanay jirin yaan ku wada hadalnay arrinkaasi waa fashilmay hadda waxba kama jiraan xaaraa quutiyaashaa fashilay way maqli waayeen go'aanka xukuumadda ra'iisul wasaaraha kii madaxweynaha inta uu ku yimid oo arrintaasi kusoo gabagabeeyey intaba waa fashilanta maanta wax xiriir ah iyo wax wada shaqayn ah oo naga dhexeeyo Jubbaland iyo dowladda federaalka ma jirto inta ay xaaraan quutiyaashaas موجود قوتياشاس أن عندنا مترين إيش يعنيان إنهين برلمان فعلا
anna wax wada shaqayn la yeelan mayno dowlad goboleedyada markay soo dhismaan oo baarlamaan dadka iyo deegaanka matalaya oo federaal ah caasimadda muqdisho la isugu geeyo markaasaa wada shaqaynteenna furmi doontaa inta ka horeysana danahayna maamulkeenna qabsanayna kenya iyo soomaaliya hadda xuduud iyo darisnimo hadda ma yeelno horey u lahaayeen waxaan qabaa in loo daayo sidii horay ay u ahayd dariskaaga ma dalbe kartid ma dooro kartid saaxiibkaadase waa dooro kartaa waa dalba kartaa isku bedeli kartaa ilaah baa daris naga dhigay annaga iyo kenya annaga iyo etoobiya annaga iyo jabuuti annaga iyo meelo waddamo kale inaan nabad ku wada noolaano heshiis ku wada noolaano xuduudaha iska dhowrno hadda xuduud hor leh oo la calaamadaynayo inay jirin baan u malaynayaa waxaan ka qabnaa in la dhowro xuduudihii horay u calaamaysnaa caalamkana aqoonsan yahay in la dhowraan qabnaa ee hadda kow muran isyijiid aan la gelinin arrinkaasi mowqifkaasaan ka qabnaa hala dhowro xuduudihii sharciga ahaa ee horay u jiray waa garta ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dhammaan shacabka ku daawanaya ee kaa daawanaya guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa nabad horumar walaalnimo iyo inay sanadka 2016 iyo inta ka dambaysaba ku gaaraan guul siyaasadeed gaar ahaan inay ka tashtaan nimanka muushuquutayaasha ah xaaraanquutayaasha ah oo aan shacabka soomaaliyeed u naxin una danqanayn ogeenna waxa ay wakiil ka yihiin siday ku yimaadeen baarlamaankana la wada og yahay inay arrintaasi ka feejignaadaan iska ilaaliyaan baan ugu baaqayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer jubbaland walaalayaalow waddadii caddeed bacagta saarteen maamul dhammaystirna maanta gacanta ku haystaan beelaha jubbalandna maanta gacmahay iswada haystaan gacmihiina xoog isu qabsada midnimadiina adkeeya walaalnimadiina adkeeya dimuqraadiyadda adkeeya federalismka taageera adkeeya waddada ku socotaan waay xuquuq insaanka ilaaliya nabad ku noolaanshaha ilaaliya ka midooba la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada ka midooba la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada danteenna ku jirta isla markaasna hal aragti baan ka qaadanay shaydaamiinta fadhida baarlamaanka federaalka sheeganaya aragtida aan ka qaadanay aan ku midowno sida haddaba ugu midaysannahay horumar cadaalad wada noolaasho iskaashi iscafin dib u heshiisiin iyo nolol la taaban karo oo waddankiina khayraadka ugu badan ee soomaaliya ku yaal inaad difaacataan khayraadka difaacataan iftiinka muuqda difaacataan caqabadaha la rabay loo dhigo iska ilaalisaan intaasaa ugu baaqayaa aad iyo aad aynu mahadsan yihiin